bino xoogaha ugu muhiimsan dunida ee sida aadka loo hadal hayo hogaamiyaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa markii ugu dambeysay uu xilkan hanan doono waxaan la sheegayaa inuu dib u soo laaban doonin kooxaha mucaaradka ayaa arrinkaasi isku raacay maxay tahay sababta uu xilkiisa ku weyn doono Erdogan gariiga waxaa lagu arkay sirdoon Turki ah maxay ka doonayeen maxay qabanayeen yay u socdeen halkee laga soo diray yaase amray oo halkaasi u diray qodobadaas muhiimka ah ayaa daawan doontaan ee ku tacalluqa arrimaha Turkiga haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aragtidaada madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo dalkaasi in muddo xukumayay ayaa markan waxa uu muuqdaa inuusan hanan doonin xilkaasi maadaama culays weyn la saarayo waxa mucaaradka ah ayaa waxay yeelanayaan shirar gooni ah oo ay kaga fadwoonayaan arrimaha la xiriira Rajab Tayyip Erdogan ilaha sirdoonka ee Turkiga ayaa iyagana waxay sameynayaan dhaqaaqyo aad u ballaaran kuwaas oo ay ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda kooxahan shiraya ee diidan inuu hoggaanka sii hayo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa siyaasadda wadankaasi ku biiray sanadii 1981 markaas uu noqday barasaabkii magaalada Istanbul ee Turkiga intaas kadib waxa uu si tartiib ah u soo fuulayay jagooyinka kala duwan ee wadankaasi waxa uu soo noqday ra'iisul wasaare xal wasiir ayuu soo qabtay ugu dambeynna waxa uu bedelo dastuurkii dalkaasi waxa uu isku magacaabay madaxweyne waxa Turkiga u yaqaanaan Rajab Tayyip Erdogan hogaamiyaha aan leecin sidoo kale dalal badan oo muslimiin ayaa aad u taageera hogaamiyaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan Soomaaliya qayb ayay ka tahay maxaa yeelay si weyn ayaa looga taageeraa oo dhowr jeer oo kala duwan ayuu yimid gargaarna waa uu soo gaarsiiyay sirdoonka Turkiga waxay ilihii ugu dambeeyay ee heleen ay sheegeen in ay kaga hortageen shabakad xoogan oo abaabuleysay kacdoon ka dhan ah madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxaa lagu tilmaamaa hogaamiye nasiib badan waxaana dhowr jeer uu ka badbaaday dabino loo maleegay July sanadkii 2017 waxaa wadankaasi ka dhacay afgambi dhicisoobay waxaana Rajab Tayyip Erdogan badbaadiyay shacabka oo isku dhigay taangiyo waaweyn oo ciidamada militarigu ay soo bambixiyeen ciidamada militariga Turkiga waqtigaasi waxa ay doonayeen inay meesha ka saaraan hoggaanka sare ee Turkiga gaar ahaan Rajab Tayyip Erdogan waqtigaasi waa uu ka maqnaa magaalada Istanbul magaalo kale oo aan ka fogeyn ayuu joogay waxaana sidoo kale Rajab Tayyip Erdogan badbaadisay gabar wariye ahayd oo markaasi telefishinka si toos ah warkaasi kaga baahisay shacabka Turkiga oo arrinkaasi ka dhiidhiyay waxay sameeyeen ciidamadii ayay is hor istaageen waxayna sidoo kale jidadka ku jiraan dhagxaan waaweyn qaarkood ayaa isku dhigay gaadiidka waaweyn ee gantaalada culus sida kaaraha taas ayaa sababtay in Rajab Tayyip Erdogan uu hanasho kale oo shacabkaasi sameeyo hogaamiyaha wadanka Turkiga waxa uu waqtigan gelayaa marxalad aad u adag waxa uu la kulmayaa mucaarad aad u xoogan sidoo kale golihiisa wasiirada waxaa ka mid ah qaar taabacsan kooxaha mucaaradka ee diidan siyaasadiisa sidaas oo ay tahay kuma culaadiyo waana hogaamiyaha kaliya ee ogol in kooxa ka soo horjeeda ay golaha wasiiradiisa qayb ka noqdaan arrintan dad badan oo siyaasadda u darasahay waxa ay ku tilmaameen ka warqab xaaladda guud ee kooxaha ka soo horjeeda isigoo markaasi hadba mar dhigaynaya kooxaha la joogo sida wasiirada kuwaasi oo laga heli karo xogo ballaaran oo la xiriira kooxaha kale ee diidan waxyaabaha ay maleegayaan Turkiga waxa sidoo kale saameyn xoogan ku haya laba koox oo hubaysan kuwaasi oo kale ah YPG iyo PKK labadaasi koox ayaa waxaa inta badan lagu eedeeyay ama Turkiga looga yaqaan kooxo argagixiso maxaa yeelay waxa ay fuliyeen qaraxyo iyo dilal kala duwan taas ayaana u sabab kooxdan ayaa waxay doonayaan gooni isku taag waxaana Turkiga looga yaqaan argagixiso halkii lagu arko waa lagu toogtaa waa la xiraa sidoo kale hogaamiyaashooda ayaa baxsadka wadankaasi Turkiga dad badan oo siyaasadiisa diidan oo wadankaasi u dhashay ayaana cag soo saari karin iyaga oo ka baqanaya haddii ay yimaadaan in xabsiga loo taxaabo kadibna qoorta laga jaro hogaamiyaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan dhowr jeer oo kala duwan oo ka hadlaya fagaarayaal waaweyn waxa uu si weyn u weerari jiray hogaamiyaasha wadamada Mareykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah Yurub kuwaasi oo si weyn looga dareensanaa nacaybka islaamnimo Rajab Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale waxa lagu tilmaamaa inuu yahay hogaamiye muslim ah oo si aad ah u adag diintiisa
haddaba su-aasha isweydiinta badan waxa ay tahay haddii Turkiga uu waayo Rajab Tayyip Erdogan yaa bedelaya oo xilkaasi qabanaya maxayse tahay sababta waqtigan loo kicinayo jamaahiir diidan hogaamiyahan sababta ugu weyn ayaa waxay tahay in xukunka uu ku raagay oo muddo uu hayo taas ayaa u sabab ah waxaana tani ay dhalisay kacdoonno kala duwan oo lagu diidayo sidoo kale Rajab Tayyip Erdogan oo xisbi ka tirsan waxa uu inta badan sameeyaa dadaallo uu ku qancinayo kooxaha ka soo horjeedo kooxahan oo dhowr jeer wada hadal siyaasadeed loo furay gogol siyaasadeed waa ay diideen inay ka soo qayb galaan taasna waxay sabab u noqotay in warkooda aan dheg jalaq loo siinin hogaamiyaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo arrimahaasi ka war helay ayaa waxaa la sheegay in sirdoon xoogan oo u diray waddanka Gariiga halkaasi oo lagu tuhmayo inay joogaan shakhsiyaad diidan siyaasadda Rajab Tayyip Erdogan isla markaana abaabul sameynayo labada dal ee Gariiga iyo Turkiga oo daris isla markaana wadaaga xadud badeed aan aad u fogeyn ayaa inta badan waxay isku adeegsadaan sirdoon kala duwan waxaana midka kale uu soo diraa ila sirdoon si markaasi loo weeqo kooxaha isdiidan ee dalalkaasi joogo kooxahan isdiidan ee dalalka jooga ayaa sidoo kale waxaa si aad ah il gooniya ugu eegaya hogaamiyaashooda soo kala dirsaday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxaa sidoo kale uu leeyahay xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka dalka isaga oo markaasi ay yihiin xisbigiisa sidoo kale waxaa ku jira shakhsiyaad aad u taabacsan isla markaana mar waliba u ah gacanta koobaad ee midig madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan siyaasadiisu waa ay furfuran tahay waxaana Turkiga uu geliyay xaalad aad u wanaagsan Turkiga waxaa sidoo kale uu qayb ka yahay wadamada reer Yurub ee ciidamada ugu xoogan kula NATO waa ciidanka labaad ee reer Yurub ama waa ciidanka labaad ee dunida ee NATO ugu xoogan marka laga reebo Mareykanka oo kaliya ayaa ka horeeya Rajab Tayyip Erdogan intaas oo sifooyna ayuu kulansaday waxaana hadda ay u muuqataa in xilkan uu weynayo maadaama uu dhowr jeer oo hore uu guuleystay haddana ay dhici karto in gacantiisa laga bixiyo sababtoo waxaa bilaabanaya kacdoonno xoogan oo lagu diidan yahay isla markaana looga soo horjeedo siyaasadiisa degan waxyaabaha ugu weyn ee loo aaneeyo waxaa ka mid ah inuu xiriir wanaagsan leeyahay Qatar taasi oo sababtay in dalal badan oo dunida ah ay u soo maleegaan dabinno ay ku sheegayaan in uu yahay argagixis kalkaal maadaama Qatar lagu tuumo inay gacan saar la leedahay kooxo ka dagaalamo qaar ka mid dalalka caalamka sida Al-Shabaab ka dagaalamo dalkeena Boko Haram oo Nigeria ah Qatar ayaa dalal badan oo dunida waxay tuhmaan in xiriir wanaagsan in la leedahay kooxahaasi waxaana Rajab Tayyip Erdogan ways ku noqon karto in lagu sii ta'kiidiyo ama loo sabayo xilka qaadistiisa iyo kacdoonkiisa argagixisa ayuu taageeraa Rajab Tayyip Erdogan Suuriya oo xuduud la leh wadankiisa waxa uu fidiyay gurmad aad u ballaaran oo aan la dhayalsan karin waxaana dhowr jeer oo hore uu dalbay in dadka reer Suuriya ay wadankiisa soo gali karaan kaamam dhowr ayuu u sameeyay oo hadda ay ku xireysan yihiin waxaana uu fuuday in wadankiisa ay ka shaqeystaan hay'adaha gargaarka ayuu u fasaxay in dalkiisa ay kaga dhex gudbaan wadanka Suuriya ciidamo ayuuna u diray Suuriya si markaasi dadkaasi loo badbaadiyo sababta ugu weyn arrimahaas uu kaga gol leeyahay ayaa lagu tumayaa in ay tahay in uu doonayo inuu ku sii socdo wadanka Syria oo qayb ka mid ah Turkigu ay sheegtaan lahaanshihiisa waa sida ay qabaan qaar ka mid ah dadweynaha caalamka ee darsi siyaasadda hogaamiyaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan dad badan waxay aaminsan yihiin in aan laga leexi karin hoggaanka ilaa uu nacamooye kuwa waxay aaminsan yihiin in hogaamiyaal ka sii adka sida Muammar al-Gaddafi oo ay leefatay ama meesha ka baxay si lamida looga saari karayaa sigana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dunida iminka si aad ay u eegayso ama hogaamiyaha koobaad ee waqtigan la doonayo in laga takhaluso sababta ugu weyn waxa ay tahay waxa uu leeyahay hogaamiyaal badan oo dunida ah oo siyaasadiisa diidan mucaarad iyo sidoo kale kooxaha hubeysan oo wadankiisa jooga Turkiga waxa uu leeyahay ciidamo aad u xoogan kuwaasi oo qayb ka ah NATO sidoo kale waxay ka howlgalaan wadamo badan oo dunida ah Qatar waxaa jooga ciidamo Turki ah kuwaasi oo gacan siiya ciidamada reer Qatar maadaama ciidanka Qatar ay aad u kooban yihiin sirdoonka Gariiga la geeyay hadii ayna aan eegno sirdoonka Gariiga loo diro waa qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee sirdoonka Turkiga waxaana halkaas la doonayaa inay ka soo qabtaan kooxo la tuhmayo inay gacan saar leeyihiin kooxaha mucaaradka ee hubeysan ee wadankaasi jooga kuwaasi oo diidan hogaaminta Rajab Tayyip Erdogan sirdoonka
Gariiga ayaa iyaguna ilgooni ah ku eegaya kooxahan la tuhmaya ee waddankaas ku sugan. Haddaba maxay tahay sababta Gariigu iyo Turkigu ay sirdoon isku dhaafsanayaan ama ay isugu dirayaan iyadoo mid walba kan kale uu ka baqanayo? Sababtu muhiimsan waxa ay tahay Turkiga waxa uu leeyahay kooxo mucaarad oo saldhig u ah Gariiga, Gariigana waxa uu leeyahay kooxo mucaarad oo saldhigoodu uu yahay Turkiga. Sababtaas ayaana ugu waaweyn. haddaba daawade adigu sidee kula tahay Rajab Tayyip Erdogan xilkan uu ku sii nagaan doonaa hogaamiyaha islaamka naanista ah ma sii haysan doonaa mise meesha ayuu ka bixi doonaa sida hogaamiyaal waaweyn oo wadamada carabta soo maray sida Muammar al-Qaddafi iyo sidoo kale Hosni Mubarak iyo rag kale oo badan oo iyagu ku dhoodo wadamadaasi wax badan haysta sida Turkiga. daawade waad ku maadsanta daawashada muuqaalkan muuqaalada kale aan soo geli doonay xiisaha si aad ula socoto channelkan subscribe saar muuqaalkan si faafo asxaabtaada la sii wadaa waad ku maadsantahay. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان